maanta oo ay tahay 19 bishii labaad 2023 waafaqsanna 28 Rajab 1444 ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala maanta waxaan ku soo booqanay dugsigii Salaama Secondary School inamada anagoo hablihina ku soconnaa insha Allah ta'ala mana aha markii koowaad ee aan dugsiga soo booqano in badan ayaan hawsha dacwadda iyo khayrka baan wada wadnaa waxaana jooga groupkii dacwadda oo ardayda kamida iyo maamulkaba marka insha Allah ta'ala waxa weeyaan hawshii jawlaadkii dacwiga ahaa ee aan ka soo bilownay aaga Bootaan waanu imikana saaka waxaan ka bilaabaynaa aaga Hidaaya waxaan ka bilaabaynaa dugsiga Salaama saaka marka insha Allah ta'ala waad nala socon doontaan khayrkana sidaas insha Allah wada doona wixii kale tusaalaana waanu idinka doonaynaa gudidii hore ee dugsiga sare ee Secondary Salaama sidoo Sheekh Saad sheegay anigoo ah gudoomiyaha aaga Hidaaya ee magaalada Hargeysa arday dhigta dugsiga sare ee Salaama Secondary School oo gudoomiyaha aaga Huda ee muassasada Tawciya al-Islaam sheekhena Sheekh Mustafa iyo muassasada Tawciya al-Islaamiya iskuma cusba sheekhena wuxuu ka hadli doonaa mawduuca shicaarka dawladda inoogu qoran ee ah al-mu'min al-qawiy khayrun min al-mu'min ad-da'if muassasada iyo idinku mahadsantiin gudoomiyaha muassasada Tawciya al-Islaamiya Sheekh Saad aad baan ugu faraxsanahay uguna dhiirigelinaya ardayda qiimaha leh ee halkan ku soo bandhigtay waxyaabaha runtii ajaa'ibaad kale ay ina tuseen ay ikhtiraaceen ee gacantooda ku sameeyeen dadka guusha iyo ma garanaysa adduunka dadka wax ikhtiraacaya iyo dadka wax sameynaya halka hoose ee ma garanaysa ayay ka bilaabeen xaanina gunta ka toontaa baa la yiri sheekh ilaahay khayr ha siiye waxaan xasuustaa anagoo dugsiga ku jirna sare oo markaa form 3 ah waxay ahayd waqti marka ku siman waa 2000 iyo 2 weeyaan waxa ka soo wareega hadda falaya 20 sanadood inaanu saas oo kale ma garanaysa uu sheekhu noo hogaamin jiray barnaamijyo khayr ah runtii aanu ka wada shaqayn jirnay jamciyada tawciya waxa weeyaan 2003 xilliyada ayaa anagoo dugsiga sare dabayaqadiisa ama gabagabadiisa marayna kalaasadii ugu dambeeyay ayaanu jamciyada qayb ka ahaan jirnay jamciyada iskuma cusbin waa jamciyadeedii run ahaantii anigoo ardayna waan la soo shaqeeyay anigoo maamulo ana waan la shaqeynayaa Saciid Faarax Xuseen jamciyada tawciya waxaan Sheekh Saad masaajidada ku xidhnaada casharada habeenkii masaajidada ka baxa ku xidhnaada insha Allah waxa weeyaan dawa cibaado waxa weeyaan diinta iyo barashadeeda iyo dhageysigeeda iyo waxa soo dhami marka insha Allah dadaal baan leeyahay sidoo Sheekh Saad sheegay anigoo ah gudoomiyaha aaga Hidaaya ee magaalada Hargeysa gaar ahaan gudoomiyaha iska xaraawri la kirarka waxaan baaq u dirayaa gobolada Soomaaliland oo dhan gaar ahaan gobolka Gabiley ee mu'tamarka aanu soo qabanay barigii dhawtoolay waxaan baaq u dirayaa inay ka shaqeeyaan Ilaahay dacwadiisa waayo Ilaahay dacwadiisa waxyaabo badan ayaa laga dheeha السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومحمود عبدالله دقن كنول مقالة هرقيسة قارهان حافظة علامة دوكسي أرضي لكتا دوكسي سراء سلامة سكندري سكول قدوميها هدى مؤسسة التوعية الإسلامية قيبت لن يرضى أنا كمد دوكسي سلامة كنمد أرضي دا وحكا دقن شرتي جمعية التوعية الإسلامية imika waxaan u yeeri doonaa ardayga koobaad kaba sameey waana Sakariya Khadar waxaan aad arkaysaan waxa laga sameeyay waa xarko iyo sar inta kabta hoosa hasaahata waa kaba caadi loo gashanayo jamciyadeennani ardayday wax u dhigaysay oo ah arday naafa gudoomiyaha Tawciya al-Islaamiya Sheekh Saad oo balilo soo gunaanada hadal kooban haduu odhanayay haduu jawaasta ugu bilaabayaba gabagabeeyay dawladii aanu u qabanay ardayda iskuulada private-iska ah iyo kuwa madaariska isku xid ay insha Allah sameeyeen kama sida imika ka muuqata ee aad la baxdeen raabidatu ansaaruddin ilaahay kuwii diinta u gargaara insha Allah ta'ala ha idin ka dhigo maamulayaashooda dugsiyadoodana waxaanu ka codsanaynaa inay sidaas oo kale dhinaca dacwadda isku xid iyaguna u sameeyaan maamulaha dugsiga Salaama jamciyada Tawciya al-Islaamiya anigoo arday ah ayuu sheekhu saas oo kale isugu keenay jiray aan saas oo kale casharo u qaadan jirnay
aanu tawjiihaad u qaadan jirnay marka waxaan leeyahay sheekha jazakallahu khayran uridii 26aad sida boorkan inoogu qoran ilaahay ajri badan iyo xasanaad ka siiyo sheekh Saad ardayda isku xirkooda iyo baraarujintooda lagu baraarujinayo dacwada iyo diinta gudoomiyaha jamciyadda tawciya islaamiya ama agaasimaha inoo soo agaasimay dowradan iyo kulanka barakaysan sheekh Saad jamciyadda runtii jamciyadda tawciya islaamiya aanu ka aragna boorkeeda halkaas imika aad iyo aad bay u mahadsan yihiin iyo in ay seminaaro u qabtaan oo arkaysa imika inuu yahay kanikiil 26aad sida in badanna waxa isku howleen ardayda iyo isku xirkooda jamciyadda tawciya islaamiya ee barnaamijkan inoo soo agaasintayna waxaan leenahay aad iyo aad bay u mahadsantihiin halka ka sii wada hawlaha waxa la wixii anaga nooga baahataana hiil iyo hoob oo idin la garab taaganahay